qorsheegtu waa 12 habeenimo warbaahinta Fios News ayaa ku wargalay xaaladda caafimaad ee Xamdan Naasir oo 12 tir la il daran xanuun ka soo gaaray madaxa 12 ka sanadoodna la jiiftay qalin ay ku sameeyeen 5 sano ka hor dhakhaatiirta Soomaaliland ayay ku guuleysteen in ay madaxa ka geliyaan tumbooyinkaas oo sahlaya in biyo aanay ka fadhiisan madaxa Xamdan Naasir qalliinkii labaad ee lagu talagalay in Xamdan lagaga soo saaro tumbooyinku dhakhaatiirtu waxa ay u sheegeen waalidka dhalay Xamdan in aan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin familka ay ka soo jeeda ama qoyska ay ka soo jeeda Xamdan Naasir waa qoys tan yar oo ka kooban 8 qof cadadka lacagta loogu talagalay in lagu geeyo dalka dibadiisa sida ay sheegto hooyada dhashay Xamdan Naasir waa $30,000 haddaba Xamdan Naasir qoyskoodu maadaama uu fiqir yahay hooyada dhashay Xamdan Naasir waxa ay ku codsanaysaa walaalaha muxsiniinta ummadda Soomaaliyeed in la caawiyo Xamdan Naasir si loo badbaadiyo caafimaadkeeda Ilaahay oo wax badbaadiyay iyadoo 40 ku jirta la helay hadii la helay dhakhtarkeedna dhakhaatiir dibadda ka timid baan u geeyay waa la qalay imaka oo COVID waxay ku jirtaa COVID jir weeyaan madaxa laga qalay in badan bay tumbadu ku jirtay hadii ku jirteen dal mooyaan dal laga qaban meel dibad mooyaan ana wax dhaqaalada ku filan aan ku geeyaa ma haysto ummadda muslimiinta waxaan ka bareeyaa inay igu soo caawiyaan Soomaalida ayaan ka bareynay igu soo caawiyaan intaas oo sanadoodna waan hayay toban sano waxaan baarsanay siiyay dawladda iska dhibaataysan iska nimcada badan leh dayarna waan hayaa magaalada dibadeedna ku jira qarashna uma hayo anigu dayar baan tuuyo ma hayo ummadda muslimka iyo dawladda iyo dadka wax haysta ayaan la garab taagan la bareeyay intayda yar inay igu soo caawiyaan waxa loo wax dhaqaalano hayaan inuu ma jirto oo meel lacagta lagu xiray waa $30,000 mana hayo jeebkayga kuma jirto الله إحنا يوم بتشتري إلهي يوم الضع لدوينة Soomaalida ayaan la bariyay dawladda iyo dadka caddeey shacabka ayaan Axmed Guuleed waxay ka mid tahay dadka ka agdhow xaaladeeda caafimaadna la socda Xamdan Naasir waxay u warantay warbaahinta Fios News waxay u sheegtay marxaladihii kala disnaa ay soo martay Xamdan Naasir halkan waxa la fadhiday Xamdan Naasir Maxamed waynan taariikh dhibaataysan xaaladeedu ogahay muddo badan ba madaxa tuumba kaga jirta waxa la qalay iyadoo 40 ku jirta kabacdi tuumbo waxa raacsan jirkeeda caloosha biyaha iyo cuntada basiya kabacdi Xamdan aad bay xanuunsan saad u dhibaataysantay waa 12 jir faalmi dan yar ka dhalatay hooyadeed ma shaqeyso aabaheed ma shaqeeyo 6 caruur la dhalatay maxaa heeday lacag waxa lagu xukumay ilaa $30,000 ayaa lagu xukumay dibad mooyaane dal waxa laga qaban karo haddaba walaal ka qayb qaada caawinta aynu caawinayna Xamdan Naasir waxaad maanta bixisataa wax ku yaala Ilaahay agtiisa fadlan cidii caawinaysa Xamdan Naasir wixii ay u karayaan ha ugu soo diraan lambarka shaashada ka muuqda oo ah lambarka hooyada dhashay Xamdan Naasir ama lambarka akoonka shaashada kaaga muuqda aynu caawino walaashin Xamdan Naasir oo aynu u kacno qofkii aan adduun haynin waxa uu ku caawin doonaa share si uu fiidiyogan u gaarsiiyo waa Abbas Abdi Said Fios News magaalada Hargeysa